السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena xooga caafimaad barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadan doonaa mowduuc muhiim ah kaasi oo ah caafimaadka ay noo leedahay bisha ramadaan ama in la soomo caafimaadka ay leedahay intaanan barnaamijka u guda gelin waxaan ka codsanayaa inaad subscribe inoo saartaan channelka haddaad nagu cusubtiin haddii aad hore nala joogtiin inaad muuqaalka like inoo saartaan insha allahu tacaala si dad badan u arkaan youtube-keenna facebookeenna kusoo biira xooga caafimaad oo follow iyo like inoo dhaha insha allahu tacaala qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena aan kusoo qaadan doono waa in soonku wax badan uu ka taro inuu miisaamo ama uu kontaroolo sonkorta jirkeena ku jirta sidoo kalena uu kontaroolo uu sameeyo in jirkeena uusan wax iska caabina ku sameynin insuliinta qofka uu qaato carbohydrate ama cunooyinka sonkorta laga sameeyo waxaa dhacaysa sonkortaasi dhiigga inay ku badato kadibna maadada insuliinta la yiraahdo ayaa mataqaana dhiigga ka qaada kadibna beerka iyo murqaha ku xariida haddii insuliinta la iska caabiyo oo jirkeena aysan wax badan u qaban karaynin waxaa dhacayda inaysan sokorta xarin ramadaanka qofka markuu sooman yahay waxaa dhacayda in insuliintaas jaanis badan ay hesho sokortii ay ku qaado kadibna murqaha iyo beerka ay ku geydo 2023 cilmi baaris la sameeyey waxaa lagu sameeyey 209 qof waxaa isbuucii laga soomiyey 3 jeer waxaana la qiimiyey wadda sokor qaba waliba nooca type 2 ga ilaahay qabeen type 2 waxa waaye nooca dadka hooyo ku dhaca waaye ilmaha yarka nooca ku dhaca type 1 la yiraahdaa dadkaas 209 qofa waxaa isbuucii laga soomiyey 3 maalmood kadibna waxaa la qiimeeyey sonkorta jirkooda siday noqonay runtii waxaa la arkay wax ajaa'ib la arkay in sonkortoodu xaalad normal ah oo jawi degan ay kusoo laabanaydo maadada insuliinta ay shaqaysanaya la arkay halkaas marka u gudubno qodobka koowaad qodobka labaad u gudbayno waxaa waaye ramadaanka ama soonka aan soomannahay wuxuu naga caawinayaa in jirkeena uu la dagaalo xanuunada chronic la yiraahdo ama xanuunada muddo badan qofka jirkiisa ku raaga xanuunadaas ay ka mid yihiin kuwa ku dhaca wadnaha kansarka iyo rheumatismada waxaa la arkay in caabuqaas oo dhan ay yaraanayaan sabab la xiriirta difaaciina jirka oo sare u kacaya xilliga qofka uu sooman yahay waxaa taasi ay keenaydaa dhammaan xanuunadaasi inay ka weecdaan qodobka saddexaad waxaa caafimaad buuxa hela wadnaha sababtoo ah xilliga qofka uu sooman yahay waxaa hoos loo dhigaa kolestaroolka triglyceride-ka oo nooc ka mid ah dufanka ah kolestaroolka u dhiso nooc dufan ka mid ah waaye iyo sidoo kale waxaa miisaanma ama xaalad jawi degan oo normal gala bareesharka qofka hadduu dhiikar qabo bareesharka hoos ugu dhaca waxaadna ogtihiin bareesharka wuxuu saameeyaa wadnaha kolestaroolka wuxuu saameeyaa triglyceride-ka labaduba xididdada wadnaha ayay saameyn karaan waana sababta haddii intaasoo bareesharka hadduu xaalad caadiga galo kolestaroolka iyo triglyceride-ku jawi degan galaan qofka wadnihiisa iyo caafimaadkiisu aad uu mataqaanaa u sara maraya inta ku badan dunida dadka inta ku badan ee dhinta waxay u dhintaan xanuunada ku dhaca wadnaha waxaana badanaa mataqaanaa la xiriiraan badanaa dufanada xira xididdada wadnaha ayaa badanaa keena in qofka uu u dhinto sida awgeed haddii kolestaroolka iyo waxa la yihahdo LDL ama bad kolestaroolka nooca ah weliba iyo triglyceride-ka dhammaan la xareeyo oo hoos u dhacaan aan dhehe xilliga qofka uu sooman yahay waxaa halkaasi ka imaanaya faa'iido badan oo wadnahaynu helayo qodobka afraad waa in ramadaanka ama qofku inta uu sooman yahay sare loo qaado shaqada maskaxda sidoo kalena laga hortago inay neerfayaal badan dhaawac u gaar ama ay baaba'aan xanuunada ugu badan ee keena in qofka maskaxdiisu dhaawac uu ku yimaado neerfayaashiisu xanuunadaas waxaa ka mid ah Alzheimer disease iyo Parkinson disease waxaa la arkay dadka inta badan ee sooma in xanuunadaani ay aad ugu hooseeyaan cilmi baaris la sameeyey 2018 iyo 2021 waxay sheegaydaa in qofka haddii la soomiyo ama uu soomo uu helayo caafimaad dhanka maskaxda uu helayo sidoo kalena ay halkaasi ka abuurmaydo in sare loo qaado neerfayaasha waxgalkooda iyo garashada qofka maskaxdiisa qodobka shanaad oo halkan kusoo qaadayno waxaa waaye waxaa ramadaanka ama soonka qofka inuu soomo ee aad uga caawinayda miisaanka inuu jirkiisa hoos u dhaco sababtu maxay tahay jirkeena haddii inta badan qofka uu cuno carbohydrate iyo sonkor jirka yacni uu soo gaarto sonkortaas waa la keydinaya kadibna dufan baa loo sii bedelayaa kadibna dufankaasi wuxuu buuxinayaa jirkeena qaybo ka mid ah arrinkaasi marka wuxuu keenayaa haddii qofka in badan uu soomo ama bisha ramadaanba ama waqtiyo kaleba in miisaanka inuu qayb weyn insha allahu tacaala ka yaraado 2015 ayaa mar waxaa la sameeyey dad baa waxaa la isku dayey in la soomiyo oo la fiiriyo bal miisaankooda sida u dhacayo waxaa la arkay in si fiican miisaankooda u dhacay 9% in mataqaan miisaankooda u dhacay markay soomeen 12 isbuuc ilaa 24 isbuuc inta u dhaxayda xiriir maaha laakiin
maalmaa laga wadaa macnaha. Sidoo kale qodobka 6aad oo aan kusoo qaadayno ama caafimaadka ramadaanka uu leeyahay waxaa ka mid ah in ramadaanku uu aad u kordhiyo waxa la yidhaahdo hormoonnada korriimada, kuwa dheefshiidka iyo kuwa murqaha kontaroola. Waxaan ula jeedaa hormoonka la yidhaahdo human growth hormone ayaa aad mataqaana u kaca xilligan, oo qofka hadduu Soomaali yahay wax ka badan 37 saacadood ama 24 saac iska dheh ama 12 saacadood ama uu kusoo celceliyo soonkaas, waxaa dhacaysa in hormoonkaas sare u kaco, kadibna hormoonkaasi wuxuu faa'iido u yahay sare kaciisu jirkeenna, murqaheena inuu koraan iyo garaadkeena inuu koro. Qodobka kale oo soo qaadayna waxaa waaye in haddii qofka uu soomo uu ka yaraanayo imaan lahaa kansarka. Sidoo kalena haddii qofku kansar uu qabo oo daawo qaadanayo, waxaa la arkay inay aad u caawinaydo ramadaanka uu caawinayo ama soonka uu caawinayo. Sababtaasna waxay tahay badanaa kansarradu waxay quutaan ama ka yimaadaan unugyada jirkeenna, gaar ahaan kuwa inta badan qaata sonkorta iyo haddii qofku mataqaana uu soomo, waxaa dhacayda in unugyadaas ay baaba'aan, kuwa kansar cellska ah ay aad u baaba'aan, kadibna ay awoodi waayaan inay soo koraan mar kale. Mar la daabacay joornaal la daabacay ay daabaceen qolooyinka American Cancer Society waxay sheegeen in intermittent fasting ama soonka mararka qaar la soomo uu faa'iido u leeyahay kuwa kansarka qaba ee la daaweynayo. Sidoo kale kansarka in laga hortagana dadka aan qabin inuu mataqaana aysan ku dhicinna uu faa'iido badan u leeyahay. Sidoo kale waxay sheegeen in soonku uu hoos u dhigayo inay koraan kansarrada qaar inay koraan. Sidoo kalena wuxuu hoos u dhigaya ay dhaheen chemotherapy-ga ama sunta dadka kansarka qaba yacni la siinayo si kansarka looga baabi'iyo. intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeena xogaa caafimaad. Muuqaalka meel fog inoo gaarsiiya insha Allahu tacaala. Muuqaalkan lamid ah intaan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.